السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمهد أصولناتي وحان ربا إنا مركو ugu horeyso idin tuso. hawshan waa kaaga hadli doonaa meel kalena kama arki doontid warkan aan inta ahayn marka nala joog inta aan sidoo kale faahfaahintan ku tusi doono. laba dhacdo oo maanta damacoodu uu ahaa kooxda shabaab inay magaalada Muqdisho qalqal ku geliso si gaar ahna ay ciidanka Soomaaliyeed ku bartilmaameedsato oo wax aan wixii shalay dhacay waxba doorin oo kale ay sameeyso ayuu Ilaahay fashiliyay. mid kamida waxa fashilka uu ku yimid markii dad shacab ah ay indhaha ku dhufteen oo ay arkeen in rag ay hoos u geliyeen meel dhagxaan badan ay yaalaan walxaa qarxa halkaas oo xarun u ahayd ciidanka loogu magac daray waran iyo ciidan kale oo ah ilaalada shacabka kuwa la yiraahdo kuwaas oo ag deganaa agaarka saldhigga degmada Yaaqshiid. shacabka maysan sugin sida caadada ahayd xogta ayayna hoos u soo direen waxaana taas ay suuragelisay in lama amnigu ay ka falceliyaan markiiba taasoo keentay in qaraxan hadda aad u jeedid sidan dhacdadan waxay dhacday qiyaastii 45 daqiiqo xilliga hadda aad muuqaalka daawanaysid ka hor degmada Yaaqshiid ayayna ka dhacday. halkan waa sawiradii kadib markii la fashiliyay bahalnimada ay damacsanaayeen kooxdaas sawiradii aan helnay. waxaa mudan in lagu marka ugu horeysa la amaano shacabkii soo sheegay marka ku xigtana sidoo kale ciidankii Ilaahay uu ku asturay ee ka hortagay ee nafaf badan ee meeshaas ku go'i rabtay badbaadiyay. marka isku duubni shacabka iyo ciidanka oo maanta hirgashay ayna taasi ku dhacdo Ilaahay ayaa sababtaas keenay. maasantiin aan aadno xeerada maslax halkaasi oo saaka dad badan oo magaalada Muqdisho ku nool ay ka maqleen waxyaabo hoobiye aan doorinin oo aad u tiro badan dadku laakiin warkaas way haayaan ilaa hadda balse wixii dhacay waxba kama oga. saacadu markay ahayd 6:20 daqiiqo xilliga magaalada Muqdisho waxaa ku soo dhacay xeerada maslax oo ay degan yihiin laba talis urur oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tiro hoobiyeyaal kuwaasi oo tiradoodu wadarta guud la sheegay inay gaarayso 17 baalooto. nasiib wanaag xilliga ay ku aadisay kooxda inay meeshaas bartilmaameedsato oo 17 baalooto oo hoobiye ay ku gantay xeerada maslax sawirada artaan fiirino wuxuu ahaa xilliga ciidanka la feeli jimicsiga la siiyo ay safka soo galaan oo hadda yaa leeyliga loo sameeyo ay dhaqaaqa exercise waxa ma doorinayn sidii shalay oo kale markii ciidanka la isku dhex qarxinayay feelin ayay u taagnaayeen ciidankaas sida haddaba 6:20 daqiiqo markay ku aadanayd xeerada maslax waxay ahayd sida ay noo sheegeen laama amniga xilliga u go'an ciidanka in la feeliyo. hase yeeshee maanta ma aqaan waxa dhacay ciidanka Ilaahay waa uu ka badbaadiyay mana galin wax feelina taasoo keentay in hoobiyaashoodii uu ku habsaday dhulkana u jeedaan ee cidla cirsiga ah ee bannaan. dhowr sawir oo aan ka helnay ayaan idin la wadaagaya. dhacdo waay oo aan midna aysan midda kale ka yarayn oo ay isku daygooda ahaa maanta inay magaalada Muqdisho qalqal ku geliyaan askar badanna dhibaato gaarsiiyaan. mid waxay gaar u ahayd askarta xerada maslax joogta oo waa xero laakiin tan kale dad shacab ah xitaa wax ku noqon lahaa marka laga soo tago jeegboontiga ciidanka waran iyo kuwa kale oo la yiraahdo xasilinta ee degmada Yaaqshiid saldhigga wax yar u jira xarun ku leh dad shacab ah aaga degan guriyaha ku yaala sida sawirada ka aragteen dadkaasna dhibaato gaari kartay taasi oo lagu guuleystay iyo tan oo Ilaahay uu sababay inaysan cidna wax ku noqonin. labada dhacdaba iyada oo aysan cid bini aadana oo haba yaraatay Soomaaliyeed waxba ku gaarin ayaa la fashiliyay xag Alleena ka sugnaatay. shalay waxa ognahay magaalada in runtii aad qaraxi ka dhacay ninka isku dhex qarxiyay dad shacab ah marka laga soo tago ciidan Soomaaliyeed oo qaranka u taagnaa oo difaac jeclaa inay ku baaba'een taasoo runtii shaki badan dhalisay waliin dowladda aysan noo faahfaahin. laakiin maanta waxa ciidanka dhanka ka harkii ay qabteen wax lagu farxay ahayd maadaama ay fashileen qarxaas aad ku weyn jugtiisa ama washeen sidoo kale tana waxay ahayd Ilaahay mahadi in hoobiyash 17 baalooto ah inuusan Ilaahay cidna wax ku yeelin. laba dhacdo meel kale kama maqlaysid nala joog xogta sugan helaysan. hayay waa Imara Luxury Homes Limited hoyga quruxda leh halkaad ka helayso waa Nairobi ee ka maqnaan. Imara Luxury Homes Limited
waxay guryaha ka dhistaan Nairobi gaar ahaan xaafadda Parkland. Dhismaha koobaad waxa uu leeyahay adeeg kasta sida goobihii cibaadada. Dhismaha waxa uu leeyahay madaaris, goobaha dabaasha oo rag iyo dumar loo kala saaray, cafeteria, supermarket, farmashi, goobaha carruurtu ku ciyaaraan iyo adeegga ambalaas xaaladaha degdegga ah. Habka lacag bixintu waa hab sahlan waxaana socda barnaamijka 90 maalmood ee ku eg 3 bisha Sebtembar ee la magac baxay Hoygu waa muhiim hanti yeelo, kaasi oo ah qiimo dhibis kala bar ah in aad gurigaad rabto ku iibsanayso. Sidoo kale waxaa jira fursado kale oo lacag bixintu tahay 4 sano oo bilaa dulsaar ah. Wixii faahfaahin dheeraad ah waxaad kala xiriiri kartaa Imara Luxury Homes Limited. Xafiisku wuxuu ku yaalaa Linana Road, Hurlingham, Nairobi, Kenya. Kala xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda.